musharaxiinta isku sidkan ee Farxaan Maxamed Cumar oo u tartamaya golaha wakiilada Somaliland iyo musharax Deeq Xuseen Aadan oo isaguna u tartamaya doorashada golaha deegaanka degmada Burco ayaa si weyn uga dhex muuqday furitaanka ololaha doorashooyinka isku sidkan ee deegaanka iyo wakiilada oo la filayo in dalka ay ka dhacdo 31 bishan aynu ku jirno ee May. waxaana labadan musharax horkacaya boqolaal iyo boqolaal taageerayaashoodahi ay soo buuxdheefiyeen afaafka hore ee khayriyada magaalada Burco iyagoo sita boorar ay ku qoran yihiin astaanta loogu codeynaya labadan musharax iyo waliba sidoo kale halkuldhigyo ay ku taageerayaan musharax Farxaan Maxamed Cumar oo astaantiisu tahay kursi iyo musharax Deeq Xuseen Aadan oo isna lambarka codeyntiisu yahay 107 ayaa bulshada reer Burco u ballan qaaday inay haddii ay doortaan uga adeegi doonaan si daacad waxayna yiraahdeen waxaan anigu ballan qaadayaa inaan dastuurka qaranka qabyatulno oo aan ku gudaabiyo golaha wakiilada haddii ilaahay xukmo in dastuurka la qabyatiro in garsoorka la saxo in xisbiga daryeelka iyo cadaaladda uu noqdo mid ka muuqda golaha wakiilada iyo golaha deegaanka labadaba waynu ka muuqannaa waxaanu ku gudaabinayaa Faysal Ali Xuseen oo gudoomiye xisbigu waa madaxweynaha mustaqbalka Burco wayna taa ogaataa waa in xisbiyadii hore waa lagu khasaaray xisbigii kulmiye qabdheer ugu ambaysi ugu lisay waynaynu wixii soo saarnaa soo ballanteenu sidaa maaha astaantaydu waa kursigii loo baahnay in lagu fadhiisto weeyaan waxaa maanta aa muujiseen in aad tihiin awoodda u lahaa xisbigoodu aad iyo aad baan idin salaamaya waxa aan noo ballanaa 31 May iyo inaynu u hiilino Zakariya Sudeysi wararka ololaha doorashada telefishinka Sahan.